Daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka Farshaxan. Maanta waxaan idiin hayaa qormo xiiso badan oo ku saabsan caafimaadka ilkaha. Runtii anigu digtoor ma ihi, balse waxaan idiin soo gudbiyaa xaqaa'iq caafimaad iyo daraasado caafimaad oo ay sameeyeen digtoorada caalamku. Daawadayaal, marka laga tago inaan wax ku cunno, ilkuhu waxay inoogu jiraan kaalmo kale oo badan oo muhiima. Ilkuhu waa kuwa go'aamiya ama jaangooya quruxda wejiga. qofka uu ka ilka qorqoran yahay ayuu ka qosol fiican yahay, kana qosol badan yahay. Inta badanna waxaa lagu xantaa qofka ilkaha la inaanu qosli karin. Waxa ay sidoo kale inaga caawiyaan inaan si sax ah ugu dhawaaqno xarfaha qaar. Bal muuqaalkan ila yara daawo. Correctly, this is a very embarrassing mistake. People may think that you said tit, a slang word for a woman's breasts, not what we use to chew food. To say the word teeth correctly, focus on the long E and the ending TH sound. Start by saying the T sound by touching the tip of your tongue to the back of your top front teeth. Add the long E made by smiling and make the sound long. Then end with a sound by sticking your tongue out of your mouth. Do not allow your tongue to touch your teeth so that the air can move over the tongue and out of the mouth. Teeth. Let's try it. Teeth, teeth. Haddaba, maadaama ay ilkuhu muhiimad weyn inoo leeyihiin, waxa inagu waajiba inaan ka shaqeyno oo daryeelno caafimaadkooda. Maxaa keenay inay ilkuhu daataan ama uu suus galo? Dadka dunida ku nool badankoodu waxa ay leeyihiin caadooyin ay inaga duwan yihiin, taas oo lagu macnayn karo wacyigooda sarreeya iyo aqoonta ay inaga horeeyaan. Balse caajisnimo inagayna haysatana wax lagaga dari karo. Caadadan ayaa ah inay caadaysteen qof kastaaba marka uu sii seexanayo ama uu wax cuno inuu ka cadaydo. Dabcan inaba waan sameynaa, balse kuma badnin. Dad fara ku tirisa ayaa sidaa sameeya. Caruurnimadii waxaan dhammaanteen wada jeclayn waxa macaan sida sonkorta, buskudka, nacnaca iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Haddaba macaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sababa inay ilkuhu daataan ama suus galo marka la badsado. Waxaan halkan idinku soo gudbinayaa talooyin kuu sahlaya ama kaa caawinaya inay ilkahaagu caafimaad qabaan oo nadiif ahaadaan. Ka fogow waxyaabaha macaanku ku badan yahay. Haddii aad ka maarmi weydana, mar kasta ka cadaya adigoo si fiican uga luqluqanaya. Si joogto ah u caday ilkahaaga ugu yaraan maalintii 3 jeer. Caday ilkahaaga adigoo isticmaalaya daawada ilkaha ee ay ku jirto maadada fluoride. Maadadan fluoride ayaa la dagaalanta bakteeriyada ilkaha gasha. Haddii ay ilkahaagu mar hore daateen, waxaad si degdeg ah u gaadhaa digtoorka ilkaha si uu kuu siiyo talooyin caafimaad. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ka heshay ha moogaanin like, share iyo subscribe.